wadankani waa burburay waa baaba'ay dhaqaale haday tahay iyo haday tahay ciidan haday tahay iyo haday siyaasad tahayba hadii aad adu isleedahay taasi uu burburay wadanka Soomaaliya ma burburin maanta maalin uu ka fiican yahay ma joogo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أدبايني سلام صاحب بيال دمانتين مالك سودا فيها الدنيا أد كجوكتين maanta waxaan joognaa waa 15 bishii saddexaad 2021 dhammaanteen waan wada ogsoonahay maanta waxay tahay waa farxadii umada shalay waxaan maqlaynay oohintii Kenya maxaa yeelay damac indhala-aan ayay ku socotay markii horeba laakiin hadda waxay ogaatay xaqiiqada balse maanta waxay noo tahay inaka farxadii waa farxadii umada Soomaaliyeed haduu Ilaahay yiraahdo maanta waa maalintii maramka iyo damaca Kenya la soo afjarayay haduu Ilaahay yiraahdo waxaan u balansanahay aniga iyo asxaabtay in aan ka qayb noqono umada Soomaaliyeed ee iskugu tagtay magaalada Hague hadda ayaan u diyaarsanahay haduu Ilaahay yiraahdo in ka soo dhuku aad iyo aad iskaga xayiran yahay ama u xirxiran yahay ta anaka Hague waxa ay noo jirtaa 2 saacadood iyo 40 daqiiqo 2 saacadood iyo 40 daqiiqo ayay noo jirtaa qayb noqono walaalaha iskaga yimiday daafaha adduunka waxaan ogsoonahay dhamaanteen inaan badda inaku leenahay baddu inay tahay bad Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay Kenya in ay wado xadgudub waxay isleedahay maanta Soomaaliya way jilicsan tahay oo iskama ka dhicin karto laakiin waxay ogaatay badan iyo dalkan inuu rag leeyahay oo umadu leedahay badani ay leedahay umad u damqata ka dhidida tiraahda no waxa maanta ay ku tahay waji gabax Kenya iyo intii ay iska soo horeysiinaysay ee canaasirtii u shaqeynaysay ee magaca Soomaaliyeed iyo midabka Soomaalida balahayd sida doontaba ha ahaato maanta waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo inay tahay maalintii guusha maanta waxaan rajaynaynaa inay tahay maalintii farxadda umada Soomaaliyeed insha Allah waxaan ku rajaynahay aniga shakhsiyan 100% inaan ku guuleysanayno arrinkan haduu Ilaahay yiraahdo 100% inaan ku guuleysanayno 100% inaan wada farxi doono haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku sheegaynaa Kenya iyo cidda wadataba badda Soomaaliyeed bayc maahin iibna maahin badda Soomaaliyeed wax dhulka laga helay maahin badda Soomaaliyeed waxay ka dhaxaysaa isirka umada Soomaali oo dhan qof kasta oo Soomaali ah oo ku aftirsada Soomaali ayaa badaale una istaagi una dhidhi una dagaalami taaka inta leeg taaka iska daaye cidida inta la iska gooyo in la eg looga tanaasuli maayo badda Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa Kenya aab iyo waji gabaxnimo taaba kuugu filan ta ayaa kuugu filan waxaan ku leenahay ka waantow haddaad isleedahay wadankani waa burburay waa baaba'ay dhaqaale haday tahay iyo haday tahay ciidan haday tahay iyo haday siyaasad tahayba hadii aad adu isleedahay taasi uu burburay wadanka Soomaaliya ma burburin maanta maalin uu ka fiican yahay ma joogo qof kasta oo Soomaaliya maanta wuxuu og yahay waxa uu leeyahay madaxweyne Farmaajo wuxuu u dhabar adeegay culays badan 4 sano uu joogay wuxuu u dhabar adeegay culays uga imanayay Mareykanka culays uga imanayay UN-ta culays uga imanayay wadanada Yurubta culays uga imanayay IGAD culays uga imanayay Afrika ama maxalli midowga Afrika culays uga imanayay canaasirta wadanka dhexdiisa culays uga imanayay macaaradka culays uga imanayay al-shabaab iyo wixii la halmaala balse maanta wuxuu ku guuleystay
in uu soo gaarsiiyo maalintii la sugay ee maanta ahayd. wuxuu ku guuleystay in uu yiraahdo waxa oo dhan no. waxa uu ku guuleystay in uu yiraahdo anagu Soomaali baan nahay, marnaaba kama talaasunayno sharafteeda iyo ciisadeeda iyo karaamada aan leenahay. waxa uu tusay inay Soomaaliya soo noqotay, wuxuu tusay tani inay tahay dawlad. laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay Soomaaliya ay ku jirto 1990kii iyo 2000. waxaan u sheegaynaa inaan maanta la joogo 2021ka. waqtiyada aad joogtiin mar hore la soo dhaafay, hore loo socdaa. sidee doontaba ha ahaato, waxaa ku sharfan xaqiiqatan xukuumadda iyo dawladda federaalka iyo dhammaan cid kasta oo ka soo shaqaysay maalinta maanta in la soo gaadho. cid kasta oo u soo dhabar adeegday, cid kasta oo tiri maya hoos u wala hadli mayno halka ayaan ku kala baxaynaa. maya cid kalena kala dhax kale mayse adduunku hana kala saaro. xaqiiqatan way ku sharfan yihiin. waxaan leenahay xaqiiqatan Ilaahay ha inaga abaal mariyo. dadaal weyn ayaad samayseen. waxaad samayseen guul ay guuli ka dambeeyeen. waxaad soo gaarsiiseen halkii la sugayay maanta. waad ku sharfan tihiin. inta yara inoo dhimanna waxaan rajaynaynaa maanta hadduu Ilaahay yiraahdo inta aan ka sugayno inaan ka gaadhno. intaasna waa baddeeni oo la yiraahdo baddiina ininka iska leh. xaqiiqatan waxaan wada ogsoonahay in lagu qabsanayo. shamiiska aad xidhan tahay ama shaatiga aad xidhan tahay ayaa lagu qabsanay. waa wax iska dhacda xaqiiqatan. caalamka iyo adduunka meel kasta way ka dhacdaa. ku qabsi ku qadimaysidee weligeed buu iska jirtay. laakiin tan oo kale waa lama arag, waa lama maqal. waa daqiiqadihii ugu dambeeyay waxa ay dib u guratay. waxaan rajaynayaa waliba kharashkii iyo maalkii iyo waqtigii iyo cududii la geliyay inta oo sano in laga soo qaado Kenya oo la xukumi doono waliba maanta qalinka lagu duugi doono. waxaan u soconnaa inaan soo guuleysano. waxaan u soconnaa inaan guusha soo qaadano, dab soo qaadano oon la soo hoyano hadduu Ilaahay yiraahdo. marka hadal badan ahaan ma buuxsho. ininka waxaa layniga fadhiya hadduu Ilaahay yiraahdo inta shaashadaha dabadeeda fadhida, shaashadaha ka daawanaysa ee halkan ka daawan doonta, inaad soo ducaysiin hadduu Ilaahay yiraahdo. ducada nagu soo dartiin. halkan aad naga daawanaysid waa Cali Dhaqan. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe, like iyo commentiga markaas waa dhiirigeliya. haddii aad nala joogtana waad maasan tahay. inta aan iskugu iman doono videogan xiga waxaanu kaaga tagaynaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabaday.